سلام سري ولا لا دمان سود هذا وأنا قشينا iyo xaaskay Shani Gabo oo idinku soo dhaweynayna Somali Christian TV live stream YouTube idinku soo dhaweynayna soo dhawaada dhamaantiinba maanta waa maalin wanaagsan waxaan niraahna waa jimco wanaagsan waa Good Friday walaalaha masiixiinta dhan waxaan leenahay happy Good Friday ama Friday wanaagsan oo farxad leh soo dhawaada ku soo dhawaada Somali Christian TV live stream YouTube waa ku mahadsantiin saaxiibada mar walba nala socdo ee daawanaya hadaad nagu cusubtahay please subscribe channelkeena share and like and comment waxaan rabnaa inaad ka mid noqotaan bahda Somali Christian TV saas waa kuwa nala jooga mar walba nala socdo oo mar walba subscribe ku sameeyay aad baan kaga mahadcelinayna joogida nala joogtaan waxaan nahay family aad baan idin jecelnahay waana ku mahadsantiin mar walba saanoo daawataan isaa nala socotaan ربنا هيدين بركايو وانو جعلنا هاي مرة بنا إنا ما أعرف سؤال عن نص قرطان سؤال عشان أقول جوابنا ما أنت مركب وحيدين ودنا سؤال ولا نسوي دي أو أنك جوابينه سؤال شو هيد شانية سؤال شو هيد هدي الدين الإسلام كبحذين صومال لماذا ميات كبحذين فليست شاس وقاتا la socdo sheekada siday tahay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo walaalaha soo galay isla markiiba Holy Boy waan ku salaamo walaalo shalom ayaan ku leeyahay Xuseen Umar waad dhowdahay soo dhawaa walaalo waan ku jecelnahay soo dhawaada labadiinaba iyo dadka kale gadaal ka soo gal dhammaan waa idin soo dhaweynina salaam idin wanaagsanaato adeeg galabta idin wanaagsanaato waa maalin farxad leh kulli anaga noo tahay waa Good Friday wanaagsan waan idin soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay joogida nala joogtaan say Shani ba sheegtay waxa waa ciwaankeena maanta waa ciwaan aad u wanaagsan islaamnimada hadda ka baxdeen Soomaalinimada miyaa ka baxdeen marka anaga nala soo weydiiyo su'aashaas anagana ka jawaabeena anaga kaga jawaabeena maartay xataa anagoo mas'uul ka ah walaalaha kale ee Soomaalida masiixiinta ah hadii ay ka baxeen islaamnimada miyay ka baxeen Soomaalinimadana taasaan maanta wada joogayna in badan waxaan dhahaynaa dhiirinaada ay fadhiya nala jooga ilaa aan ka dhamayno waayo waxyaabo aad u wanaagsan ayaan dhexmaraynaa oo muujinayo maartay ama ka jawaabayo su'aasha nala soo weydiiyay sida ay tahay waa run shino wili caad waxaan maaragtay u nahay afkooda aan ku hadli karnaa not only kuwa masiixiinta noqday laakiin dad badan ay jiro oo ATS ah ama maxay diimo kala qaatay ATS markay Sharia leedahay waxa ka wada kuwa oo maartay muslimaan ahayn islaam masiixiin ahayn ma aha laakiin qof kasta oo diinta islaamka ka baxay wuxuu doonaba ha haystee waxaan wadanahay kulli isku doon ayaan wada saaranahay marka waxaan rabnaa in afkooda ku hadalno anagoo Soomaali idin la sheeganayno idin ku abtirsanayno oo Soomaali idin la awna taqaanaan haddana Kristaan noqday ama diimo kala qaatay ama Ilaah ma jiro ku yiri wixii oo dhanba sidii maaragtay ma Soomaali baan wali nahay مسمنهن ولي ويلكم بان هاي من السوق دوينيا ومن الربع مسنا لما ربع ساس أعرف يعني سيدا أي تهابا أو ناقو برتي مرة البابا مركان هذا لأنه وحنا صوحي قلنا كتاب قدوس كأه هذا لذا وناس ربنا ونوسو ديبه صح وحربا إلى نعيم حسين سودوا معن تودنا قلبي فرق سودوا يو world today سودوا ولا welcome we love you God bless you ولا لا هنجعلنا سودوا هذا وانا كفرح سنة إننا نجوكتان مركا وحنا Holy Boy yes وارن بويرو هذا كأقوال لسان أديات مركا أنا الصوماليين وانهاي مسيحيين وانهاي هذان كبحنا إسلام نمذا معنى هذا waxaan idin dhexmaraynaa Soomaalinimada iyo ma artay iyo masiixnimada laftiisa isugu xirantaa saan idin sheegayba ma artay aan nooga barateen annaga markaan hadlayno waxaan soo qaadanaa xigasho aan ka soo xiganayna kitaabka qudduuska hadallada wanaagsan ee Rabbiga marka hadallada Ilaahna mar walba waa dhiirigelin hadallada Ilaah mar walba ma artay dadka kor u qaadaan waa wax fiican waa hadallada Ilaah wax ma kala dilaan hadallada Ilaah wax ma xumeeyaan hadallada Ilaah dadkay dhisaan dadkay jacayl ku abuuraan dadkay nabad siiyaan dadkayna fiicnayaan oo caafiyaan marka hadaa aragtid intaas wax ka duwan wax waa wax kale oo ka geesa laakiin hadalka Ilaah daa maqashid waa Ilaah kan anagana abuuray ummadan adduunyada dhan wada abuuray wuxuuna rabaa ummadiisa inay nabad ku noolaato fiicnaan farxad ku noolaato marka hadalkiisana wuxuu anaga marba nool yahay nolol noo yahay wuxuuna dhisaa oo qaabeeya nolosheena sida anaga aan ahaanayno marka hadlaynana waxaan ka dhaxadlaynaa kitaabka quduuska sida hadalka wanaagsan Ilaah uu leeyahay mar walba ورن شينا runtii dadka Soomaalida way garan karaan adduunka inta joogto dhanba bini aadanka dhanba Ilaahay markii ugu horeysay yuu ka wada keenay kulli maxaan nahay farcankeena aadam iyo xawan ka soo farxanay halino Ilaahay sameey iyo xaskiisa oo feertiisa ka sameey kitaabka quduuska saasa ku qoran kulli waxaan nahay farcankii aadan iyo xawo marka aadan iyo xawo farcankiisa nahay kitaabka injiilka maxaa ku qoran
ayadahan rabna فرعن كآدم هدانا عشان وآخرنا فرعن كآدم هدانا معناها وحوي عشان الشيء هل فميل عنها يس ماشي سكوسوس فرعني هدي عمر سود واو وارن هدي قفون يصير هذا كلا فردي وقف دون بني آدم إنه حماية يا آدم بنا لقوا أبوه كل جنب فرعن كآدم بعوضنا هاي عدان مدو جدود جال قفل بنور بني آدم بعوضنا آدم فين بني آدم كسوس فرعن كل جنب مرك بني آدم ما سان وحفوضنا ولا على قارب وحلقة بين يرادن إذن ولا على المتين نجا لكن ولا على النمذ هو ملايين رميصد يوم أرتي ياركتي ولا على النمذ شيء إنه وفرعنك ماشي كسوس فرعن كل جنب تاسم ولا على كلنا بني آدم النمذ أيام ولا على كلنا دمان تيمبا مركا سيشاني شكتب وحنو أخرنايا كتاب القدوس كاه ملكاي عتب كيس اللباد آية الطبنات أيانو أخرنايا إن أنو نهاي عدينا يسا دتك إله إنا وذا نهاي كل جنبا إلهنا أنا جنوذا أبوري آدم نكسوذا فرعنا دمان تنبا ميانا كل جن اسكو آباء هين سو اسكو إله إنما أؤمن بالمحامد كين كستبا ولا الكيس أقور صنايا إنغو إسقو أخيانينا إسقو نجاسينا أحد جي أو ياشين إنه نجاسين يا بل محان كان كستبا ولا الكيس أخيانينا يا إنه نجاسين أحد جي أو ياشن يا وارون قطرة سودة وقطرة التجا وحيلة هاي واو هبقالي يا أبتشينو ربي هذه اللجرو ولا سودة قعدناها كل جرو سودة ربي هاكبركيه ربي هاكل جرو بل هذا أيضا شيء وحنا معنا نسميه كل جن إسقو آباء هنا الولاء سو إسقو إله إنما أؤمن هل بيعك سافر عني إلهنا ونا عبوري كل جن بنادم هذانا هاي دين تادون طبعا يسوع إله أيانا وذا عبوري أرجس آدم نقصه فرعنا كل جن آدم بقصه فرعنا إله نوحنا نقسمي أرجس ونقسمي إيشعيل وناقب ناموس من إنه نعدون سد أما نجمس أما عسن عنا أما عسكال قيبنا كل ون عبورتي وحنا فرعن كي آدم يحاول وحنا هاي ولا لنا هاي إلهي بانا نوض أبورت كل جن عبا إسقانا نوح أنت مسيح قالتو عبا كل ويرتكو كو كل حتى أنا قرنين كل عبو ويهاي واي ما أنت هذه المعاد الشيء عنك ومحيط تقول كبحر كنا كل جو عبو كله منا وكاتج ونعبو كلهين معناه إذا ما هنا هذا كان كلنا لالين لا بد بعد هذا الشيء لكن منا وكل جو عبو كير منا كل مجوج ومقينه هاي مركز الصومالي هدان هاي أيضاً وين قبنا كل جن سماه شيء. كل جن بقى هل أبا وضلنا كل جن إله بقى إله إنه وضع سجنا وضع أبوري. مركا محات تفرارق إلو كينايا. تفرارق من أكو إيمانا يانا. أذيك واحد منتي أذيك واحد رميسن تاي أذيك واحد كوفي كرتي وواحد يقاس كوا. لكن أصل كما كلا فيرنا كل جن آدم كسوة فرعني. إله بنا وضع أبورتي أنا قاعد نبا هذا بس هدا الشيء إله محدونا يا مرك إله محدونا أنا قاعد نبا نبت أنا كنا لهانو واسية تصار شاني هذا أنا عرور بدنا هذا لين هاي عرورة الجوري هو جوكتو مرك نبت كود الجوجان وفرحة وفرحة يدقنا كوجوجان أبي هاي ويكون فرحان أدي وتصال ونكسن لكن هدي إزدقاليان سوق عسينين وحن ونكسنين رالك معها أباها هو إذا رالك معها ويكون الولايان مركز ده أود إلهين كنا أبوري وهذا هل كان كل شيء إنه أنا أبوري وحربا وجعليها عروتيسة إن كل ود نبض يكون ولادان يجوا اسكو احترامايا difference يا أما كل دواناشها يجوا اسكو احترامايا كلا أركت دواناشها يجوا اسكو احترامايا إن شنطن فرود أيسن سنان ومتبوق ومارته سكل سيوياي إلا اسكو احترامه هذا شنطة إذا فرود ما دهيكرم تنا أقول در كل وانا وده ديراتها ما دهيكرم تنا أقول قابن كل وانا قابتها ما وده دهيكرم أنا اسكو وده شنطة إذا فرود سيهينا نكو أقبلها سيهينا نكو هالسنة واي فرول بابا شانية فر هول جونيا إلى أوتر جانا قبته وسيدا مركز سالة ونكسن وحال ربع سعدي علي سودوا سعد علي سودوا معنته سلام شاني شينو وين سلام الله أدم كسرنا سادة وكسر ويننا وأنا كجعلنا ربي كبركة أذي إرهاك هذا we love you sister يا وحن كار لنا مركو حواي كل دوناشها إني تهيبه شاني وحن أمسنا كل دوناشها وحنا ونكسن وبن آدم ونكسن هذه كل جينا بقى عن معنا نوع وذهانه حدد المرحلة هالنورش هذا كل جينا اسكو عرفتنا هاي معناها هرمر ما وذجار لهن مركا الدنيا ده نبغى حكوا عتابك كل دوناشة ما عرفت difference ما عرفت يو كل عرفت دوناشة هذا أنا ودنا كنا لها شانيك سوقات إنجليزك قالها برلمان كإنجليزك وحافظية نوع والبوا أو ودنا كل كلمات يا فلسن سودوا فلسن علي هلو ما شاني معانت بترسود دوا معانت فلسن سودوا أدبنكو سلامة أكسل دمان دتك ذاك سجل سودوا هذا مركا ودنا كان أنجوجنا أو إنجليزك وأنا أمسنا هذا بدنا يوروب جوجا أم أمريكا جوجا إن نقول عسينهين وح قالها هذا برلمان كوحافظية وعدد كل دون كل دين دون كل قاب دون كل عرقت دون كل جنس دون كل كلر دون
haddana isku fikir waa waddanka maxaa uun u wanaagsan ay ka wada hadlayaan ka wada fiirsanayaan ayagoo kala diin ah ayagoo kala fikir ah ayagoo kala dhalasho ah ayagoo kala dhalasho ma isku wada dhalasho waaye laakiin jinsi kale kasoo jeeda marka sidaasaa la rabaa in aragtideen annagana ay ahaato inaan dhahan aan ku hayno in annaga aan nahay bini aadan hal meel kasoo wada farcamay ilaahna uu yahay wixii kaleeto dhaxana aan nabadeysano oo wanaajisano nabad iyo wanaag inaa lagu wada joogo marka su-aasha aad dadka weydiinaysaan mar walba waxay tahay Soomaaliya tihiin masiixiyiin aan noqoteen dadka marka masiixi noqdaan ama ay noqdaan ilaah laawo noqdaan ama diimo kala galaan waxay doonaan ha sameeyaan adiga maxay ahayd kama xigtid Soomaalinimada saas ah Soomaalinimada kama xigtid waayo adiga qofkan ilaahiisi anigii ilaahigii abuurtay dhexdeen wax ku geliyo waaba qalad diinta islaamka inta imaan ka horna Soomaalidu way joogtay shina diinta islaamka kun iyo afar boqol sano ka hor macnaha Soomaali way jirtay Soomaali way jirtay haddii Soomaali jirtayna dad nool ay ahaayeen waxyaalo kala duwan islaamnimada ka hor imaatay Soomaalinimada horeysay intaasoo milyan laga yaabaa inay sii jirtay Soomaalinimada maxay aaminsanaayeen haddii rabaan kristaan ahayn haddii rabaan ilaahay qalaad ay aamin jireen waxay doonaan ha aaminaan laakiin Soomaalinimada ka horeysay maxay ahayd islaamnimada runtii aniga dadka qaar waxaan ku dhahaa oo iidow familkayga markii aan masiixiga noqonay xanaaqeen oo kala dhahay masiix haddaan noqoto saaxiib kulama ahaan karno ma kula socon karno ama maxayd gabadheena ma ahaanaysi waxaan ku yiraahdaa ma dugsi quraan ay ugu barat maya ma waxaan isku baran dugsi quraan maya gurigiina ku soo baxaan ku dhexdhash before islaamkii wixii dhanba aan fahminba meeshaan ka dhalanay marka ogaada islaamnimadu waa laga horeeyay waxa ka horeyso Soomaalinimada ma nagu filan tahay waay Soomaalinimada ma nagu filanta Soomaalida bulshada Soomaalida boos ma uga banaan yahay Soomaali masiixi aniga waxaan rabaa inaan su'aal fiican weeshaan waana su'aal aad u wanaagsan waxaan aniga aan aaminsanahay Soomaali masiixi iyo Soomaali ilaah laawo xataa ma aragtay andanaahna oo islaamnimada ka baxay waa loo baahan yahay dhamaantoodba Naima Hussein soo dhawaa macaanta soo dhawaa Naima soo dhawaa Naima Hussein waa isku wada baahan yahay Soomaaliya qof walba wuxuu doona ha aamino laakiin Soomaalinimada ayaa loogu baahan yahay haddii waddanka la rabo in dib loo dhiso waxaa xaqiiqo ah nooc walba oo Soomaali ah inuu dib ugu laabto waddankii oo wax ka dhiso waayo fikirka adiga kugu jira ka duwan ayaa ku jira walaalka dhiiga sinjiga iyo dhiiga waa maguuraan sax ah diintu waxa waaye cibaado weeyaan caqiido weeyaan qof walba wuxuu aaminsan yahay isagii ilaahiisa kula xisaabtamay waayo qof kasta qumaniisa qorta ugu jiro adiga waxa u malaysaa in adiga kaliya aad tahay qofka kaliya saxsan aniga waxaan isku maleeyaa anaga kaliya inaan dadka saxsan qolo kastaba waxay aaminsan yihiin iyaga kaliya inay saxsan yihiin taas ilaahay baa kala xisaabinayo anaga jidka ilaahay u mareeno adina uma sheegaysid adiga ka u maraysidna annaga kuma sheegan kuguna qasbeen laakiin Soomaalinimo naga ma xigtid Soomaali baan silnahay walaalaan nahay sinji baanu nahay isku dhiig baynu nahay hadda dadka meesha fadhiyo waxa laga yaabaa Soomaali hadda is warwareysto ina hebel walaalaan nahay hadda waxa rabaa inaan idin sheego ayad meeshan rabaa inaan idin qabsado xasuustay waxa ku qoran maxay ahayd Rasuul Pawlos ومد حرت عيسى مسيحي بنقضي مركي هون مسيحيين تكسو هرجيد هذا حلقة عادي أنا داونا إنا مسيحيين تأكسو هرجيد لكن بريئنا مسيحيين تنقطيد عادي نقطة كان هالكم فردي السنة وعدنا أنا شيء ما شان فردينه تذك جاري دون تعالك مسيح حلقة بسندون نينكن سيدا نقولوها مركي مسيحي ونقضي أيام لوجستي مركي لوجستي محور هاي وحكوا قرن فيلبوس سدح شن إلى سديد وحكوا قرن aniga wuxuu yiri waxaan ahay uu leeyahay inuu wuxuu sheegay nin yahuudi yahay oo uu abtirsanaya wuxuu leeyahay aniga waxa la gudo maalinta sideedaad oo waxaan ahay jinsiga reer binu Israa'iil oo waxaan ka ahay qabiilka Benjamin oo waxaan ahay Ibraani kamid ah Ibraaniyada oo xagga sharciga waxaan ahay Farisi xagga qiiradana waxaan ahay mid silcin jiray kaniisada xagga xaqnimadana sharciga ku jiray waxaan ahaa eedlaawe habase yeeshee waxyaalihii faa'iidada ii ahaa kuwaas masiixa aawadiis ayaan qasaaro ku tiriyey wanaaga runtii anigu wanaaga runtii anigu wax kasta ayaan qasaaro ku tirinayaa wanaaga aqoonta aan aqaano rabbigeena ciise masiix aawadiis kaas oo aan aawadiis wax kasta ugu qasaaray oo haatan waxaan ku tirinayaa inay yihiin qushaash inaan masiixa faa'iido ahaan u helo waxa weeyaan maanta hadaan iswareysano ama aan fiirsano waxa laga yaabaa walaalaha shiina walaalisi inay fiirsanaan walaalaha fiirsanaa ilmaadeeradeen familaan ka dhalanay isku sinji baan nahay adigaas haddana daawana waxa laga yaabaa xitaa inaa is dhahdo dadkan waxba isku manihin
war Soomaaliya des waraysto waa isku ilmaadeer ilmahabreed isku reer hebel waa dhiiggaasna waa hal xabo haddii jirkaaga la saro dhiig guduudana ka imaana anigana sidoo kale isku wada midaan nahay sinji baan nahay waana maxay ahayd asalkiina walaalaana banahayba ma fahamtay qabiilka doonaba lagugu sheego wixii la doonaba lagugu sheego dadka Soomaali way is wada dhaleen nagama xigtid Soomaali nama bixin karti anagu sidaadoo kalaan u hayn shal dugsi quraanka kula dhex fadhinay gurigaan kula joognay qabiilkaanu qaaraan kula aruurinay aroosidiina nooga yeerinaysa anaga idinkaga yeerinay maanta da kristaan noqon meel baabka naga xirnaysaan waxa dheesaan nooma soo gelaysaan Soomaali ma tihiin xafladaheen ha imaanina maxay aroosideen ha imaanina hana caawinina qaaraanka hana siinina maxay kristaan noqoteen Soomaalida miyaa naga tuuraysaan mana tuuraysaan maya inay ahaataan saas ma taas waa fikir aad iyo aad u qaldan oo la rabo in laga hor imaado Soomaalinimada ayaa ka horeysay islaamnimada Chelsea shalom dear welcome Chelsea welcome and also the EMOK sorry umada kale way isku dulqaataan buu yiri wiilkan Soomaalida hal isku dulqaato aniga masiixi ayaan raacay dadka iyo diimaha kale waan xushmeeyaa wow praise God soo dhawaa Naciima saxbay tiri walaalkii kale wuxuu yiri waa runtaa buu yiri maxay hadii waa walaalkeen hadalku ku hadlay exactly waa hadal aad u wanaagsan masiixadii uu raacay wuxuu leeyahay aniga waan ixtiraamayaa diimaha kale asna wuxuu rabaa marka in la ixtiraamo diintiisa la ixtiraamo dulqaadashada ayaa naga runtiis waaye aniga waa dareemaa waan ogahay isku mid dulqaadano Soomaalida markay maqlaan kristaan baa noqonay ama diintiina waan ka baxnay ku fogeynayaan waxa ugu horeey ay ku fogeynayaan waxa way cabsi ay ka qabaan in adiga marka u timaado ay ogaadaan in adiga masiixi aad tahay ku aqbaleen oo isla yihiin macnaha waa aqbasheen amal waan aqbalaysaa waan imaanaysaa adiga hadaa qarisid xataa maartay in aniga aan masiixi ahayn adduunyada way socotaa horumaran wala gaaray caruurta ama dhalinyarada sax waa caruurtan dhalinyarada ay isla yihiin ka qaraya ma ka qarsoomayaan internetka ku jiraan youtube-da ku jiraan facebook-da ku jiraan meel walba Soomaali Christian ama Soomaali masiixi lagu arkaa marka waxa qarin kartid malaha wax walbana waxa wanaagsan in banaanka la soo dhigo dadku ugu sheegi kartaa waa dhihi kartaa way jiraan Soomaali masiixi laakiin aniga muslimna aaminsan waa dhihi kartaa laakiin xorriyada asaa iska leh ilmahana hadhow hadii ay weynaadaan oo aqli ay yeeshaan hadii ay gartaan in wadada idinka ku socotaan ay qaldan tahay way ka leexan karaan ayagana waa in ayagana asiisa xorriyadooda hadii ogolaadeen sidaada oo kula joogayaan hadii ogolaan waayeen sidaada dhinac u soconayaan laakiin waalid baa u tahay walaal baa u tahay saaxiib baa u tahay waxaas wax iska bedelaa malaha waxa la yiraahdaa shaaniye dhiiga waa ka weyn yahay ama waa ka culus yahay biyaha waa run marka dhiigaas adiga uu kula leeyahay qofkaas kale ee Soomaaliga ama kula dhashay waa ka qiimo badan yahay ka weyn yahay ilaahna wuxuu rabaa dadku qaraabada ah ama ehelka ah inay soo dhaweystaan inay is ixtiraamaan isku wanaajiyaan wixii xukun ahana ilaah baa loo deenayaa وارن لكن قف بن آدم أكتر جوج إن أنت عنصريسيد أتقون وبحسيد سوماليا وحي كبر برتو حواي أنا قدنا إسليدنا رجي دمركي الليدايان دمركي عروتي سير ليدايان قبيل بقبيل ككلو ليدايا حدا ديمي أنا قد بكينتين دينتو كبحي حلا ليدو وحاس وقلد وين وحان ملكو جارينا ملح دتك إلهي فالصحة faraha ka qaada diintii rabaan ha qaataan adiga waxa laga rabaa jacayl xushmo soo dhaweyn iyo wanaag laakiin dadka albaabkan ka xiranaya oo hay caawinin oo hadda dadku Yurub nala joogo kale Yurub kula joogo kale maxay sameynayaan dadka Yurub joogo kale hadii maqal qof Christian waay hadii raba waxay leeyihiin oo yu iimaan hebel ay ugu arkaaye ina maxay hebel gaal buu noqday saaxiib baan la ahay ana wali xumeena dad kale ku cabsana ilaahay taabsiis ma waxa laga si dhuumasho hadhow telefoonku ugu soo diro wuxuu ku leeyahay hebelo ani waan ku jeclahay laakiin maxay isma arki karno waayo hebel baa ay arkaay bal fiir ummad loo iswaardiinayso waay warwaardiinimada iska daayo dadka fasaxa si ay xor u noqdaan waxay doonaan u aaminaan walaaltinimada saaxiibtinimadana wada oo hagoynina iska daaya istutuska iyo isiyasmada iyo hoos isku dhigida iska daaya waay anaga Soomaali kama baxeen wax kasto sheegtaan anoo Kristaano kaniisad rabo u baahan ina Soomaaliya liiga dhisay imaana mucatabkayga xiran qoorti sas iigu suran ayaa rabaa ina Soomaaliya joogo adna waan ku jecelahay adna waan ku jecelahay oo muslim waan ku jecelahay masaajidka ka soo jeedkiisa kaniisad inaan ka dhisan karo waa ina ogolaataa kan kala imaana synagogue ha ka dhisto ku kala imaana wuxuu rabaa ka dhisto dadka waa inay xor ahaadaan iswada jeclaana
maaha inaad box nagu aruursaan tirada haddaa aniga iga soo horjeesatid ana maxay tahay anadaan kaa soo horjeeda haddaa ka baxdid nacam ma fi camal soo gala oo laga baxay camal inaad ka dhigtaan maaha soomaalinimada saas waxaa jirta qof walba bini aadana wuxuu jecel yahay waxa asaga uu rabo in loo sameeyo asaga rabo in loo sameeyo uu jeclaan lahaa in loo sameeyo qaynuunka dahabigana wuxuu leeyahay waxa adiga aad jeceshahay in lagu sameeyo u ogolaa walaalkaane marka inaad u samaysid adiga ka soo qaad hadda adoo dhegeysanaayo walaalkeena ah oo muslimka ah ilaah baa qalbigaaga bedelay hadhowna runtii aragtay masiix baa noqotay ma jeclaan lahayd in lagaa saaro soomaalinimada ma jeclaan lahayd familka in lagaa dhex bixiyo maya ma jeclaan lahayd in lagu yidhaahdo nagama tirsanid maya hadda sii ogolow haddaa sii ogolaata hadda fikirkaagan wanaagsan wuu ku hagaajinaya adna sihaam xasan soo dhawaa macaanto waxay tiri sihaam xasan waxay tiri soomaalinimada iyo diinta maaha wax isku xiran aaminka waa qofka iyo ilaahiisa ayay ka dhexaysaa aamiin waa runta waa kugu raacsanahay waa aad wanaagsan aniga waxaan mar walba idhaahdaa soomaalinimada ma aha islaamnimadana ma aha soomaalinimo waa sida anaga hadalka ku bilaawnayba soomaalinimada soo horeysay oo ka soo horeysay islaamnimada intaanan islaam ahayn ayaan soomaali sii ahayn aniga intaanan dhalan ka hor islaamnimadu way jirtay laakiin aniga markaan dhashay waxa waaye waxaan ku dhashay wax la-aanaan dhashay dadkayga ilmo yaraan iska dadkayga waxay ahaayeen unbaa laga dhigay laakiin markaa qofka caqli uu yeesho uu garaad yeesho waa inuu dhaqaaqo oo wixii ilaahay maarata ku hagaagsama waxaan noo akrinayaa shaaneeyo Yuxana cutubkiisa 15 aayadda 6 oo hadalkan hadda aan wado exactly sideeda uu u sheegayo kitaabka quduuska wuxuu leeyahay Yuxana cutubkiisa 15 qormada 16 waxay leedahay idinku imeedan dooran laakiinse aniga idin doortay waana idin diray inaad tagtaan oo miro soo dhashaan iyo in mirihiino isii jiraan marka waxaa arkaysaa qof kastoo masiixi ah ilaah baa doortay anagoo Soomaali iska ah anagoo Soomaali ah oo muslimiin iska ah waqti ba ilaahay maartay no yimid ilaahay macnaha hadalkiisa ku soo gaari karo qof baa ku sheegi kara riya arki kartaa kitaabka aqrin kartaa siyaabo kala duwan ayaa ilaah dhaqaaqiisa ku soo gaaraya ayaad maqli kartaa markii ugu horreysay oo badbaadi kartaa maantadan ayaa laga yaabaa dad daawanay videogan inuu ilaah ku badbaadiyo sax marka saas u badbaado waa markii ilaah uu ku doortay yes Emmanuel soo dhawaa walaal waa ku salaanay Emmanuel wuxuu leeyahay walaalaha muslimiinta ah diinta waan idinku xushmaynaynaa teena nagu xushmeeya rabbigan ha idin barakadeeyo amiin walaalka Emmanuel ku raacsanahay waa aad u wanaagsan annaga saan rabnaa in loo xushmeeyo ayagana waa in u xushmeeyna iyagana say rabaan in loo xushmeeyo waa in isku xushmeeyna markaas nolosha fiicnaanteeda helina umurashiya nabadana meesha umurasiya soo dhawaa soo dhawaatay welcome walaalaha dhamaan wadnaha noo soo dira world iyo dhamaan hadalada wanaagsan meesha ku yaala iyo sida nooga qayb qaadanaysaan waa ku mahadsantihiin continue markt sii wada commentigiina waa mahadsantihiin waa akhrinayna marka annaga ma doora ilaahna doortay marka sidaasaana looga soo saaray meeshii aniga aan hore u joognay islaamnimadu waa ka soo baxnay marka hadalka ilaah ayaan rumaysanay masiixiin ayaan noqonay waxaana leeyahay marka in miro inaan dhalno miraheena isii jira waa miraha dabeecadda wanaagsan dabeecadaheena wanaagsan markay dadka kale ay arkaan walaalaha masiixiinta aan u sheegayaa dabeecadaheena wanaagsan ee dhaqankeena wanaagsan markay arkaan ayagana ogaanay in annaga nahay dad wanaagsan dadka ilaah inaan nahay markaas laga yaabaa ayagana inay ku daydaan shuqulkeena wanaagsan si ayagana ilaahay aabaheena jannada ayagana u amaanaan marka ma aha anaga inaan soo dhaqaaqnay ama inaan wax kala soo doonanay ama inaan maartay magac raadinayno ama in maartay adduunyo kale iyo waxay kala jirtaa ilaah asana doortay hadduu asoo ku doortay maxaa ka wanaagsan Susan Adam soo dhawaa walaalo soo dhawaa rabbiga ha ku barakeeyo soo dhawaa waa run teeda kalena anaga masiixi markaan noqonay iyo dadka islaamka ka baxay oo dhanba islaamka loogama bixin in idinka cadow idin ku noqdo waa idin jecelka shalay idin qabno mid ka sii weyn ayaa maanta idin qabnaa waayo masiixiyada waxayna baraysaa xitaa cadowgiina jeclaada laakiin waxaan rabnaa maskaxdiina inaan ka bedelno waxa lagu qunfulay ee qaldan ee Soomaalinimada iyo muslimada aad isku xiraysaan alada maanta af Soomaaliga noo daaya maanta Soomaali waa ka baxdeen maanta saan ma tihiin ma soconayso qofka masiixiga agtaada joogo sidoo shal aw ku jecel ka badan ku jecelaya u tag albaabka u fur soo dhawee maybe hadda ha u tagin labada maalin inta cudurradan jiraan laakiin haddii arrinta hagaagto soo dhawee isagana uu ku casuumayaa jacayl buu ku hayaa ilaahay adiga ma tihid Soomaalinimadana nagama bixin kartaan aan isjeclaano oo isku xirnaano mar walba waa sii wadeena kitaabka quduuska waxyaabaha uu ka leeyahay ku anaga aan nahay anaga inaanan ka soo cararin Soomaalinimada ama ka soo cararin waxyaabo kale laakiin ilaah maadaama uu doortay ayaa haddana Butrus koowaad cutubkiisa labaad qoraalka saddexaad wuxuu leeyahay inuu akhrinsa shaani waxa ku qoran laakiin si idinku waxaad tihiin jinsi la doortay oo wadaadada boqorka iyo quruun quduus ah
iyo dad ilaah iska leeyahay inaad ogeysiisaan wanaaga kan gudcurka idinkaga yeeray oo idinkugu yeeray xagga nuurka iyo yaabka leh ilaahay soomaalida wuu doortay annaga markuu naga doortay wuu doortay hadda wiil walaalkeena soo qoraayay holy boy wuxuu soo qoraayay waa in muqdisho kaniisadihii dib loo dhisaa amiin aniga rabbi wuxuu waa idin doortay jinsi la doortay baatay soomaaliya waa idin doortay soomaaliya haddii shaani shiinaba idin wacdinaya maanta idin hor joogaan oo soomaali badan oo masiixiyiina maanta inta idin soo horfariistaan idin wacdinayaan oo walaalo badan oo masiixiyiin anaga aan naqaan inta idin soo horfariistaan idin sheegaa idin wacdinayaan ogaaday waa idin doortay ilaah wuu idin doortay hadhow ma oran karta leeyma sheegin heesaa jirta la dhahayo hadhow beeyo oran layma sheegino laylama hadlina ya hadhow ma oran kartid nalooma sheegin masiixa ma aana maqlin ma oran kartaan waad maqasheen waa lidin sheegay ilaahay inuu idin jecel yahay masiixiidana waa jacayl iyo nabad soomaalina waa la doortay kaniisadaha in dhisa ayaan idin leenahay dowladda xitaa idinkoo fikir kale aragti kale naga qabin walaalaheena muslimka ma aragtay ilaah markuuna doortay wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad ogeysiisaan wanaaga waxaan wadnaa waa wanaag un ma aha inaan idin xumayno ma aha inaan idin cayno ma aha inaan wax kala qaldan idinka sheegno waxaan rabnaa wanaaga inaan idin sheegno waxaan rabnaa in idin sheegno ilaah dhabta ah ee wanaagsan ilaaha nuurka ah inaan dadkeena aan u sheegno kitaabka quduuska waxa ku qoran nuurka aan ka hadlay ciise masiix oo wuxuu leeyahay hadalka ilaah aniga ayaa ah nuurka dunida kii walba soo raaca weliis gudcur ku socon doono wuxuu salahan doonaa nuurka nolosha waxaan rabnaa nuurkaas nolosha inaan idin soo gaarsiino waxaan u soconaa waa wanaag weligeed lagama yaabo inaan xumaan idin keenno ama xumaan idin sheegno ama xumaan idinku dhex faafino ama xumaan aan idinku dhex samayno waxaan idin wadnaa waa wanaag ilaah idin jecel xitaa idinka anaga waa idin jecelnahay waxaan rabnaa marka inaad jecelkaas idinla qaybsano wanaaga anaga keliya ma qarsan karno miiska hoostiisa ma gashan karno anaga wanaaga aan helnay jannada aan helnay raxmadda aan helnay idinkana inaan idin qaybsano waxaan rabaa shay inaan aqriyo suusan aadam waxay soo qortay ciise masiix wuxuu yiri midba midkiina kale ha jeclaado aamiin ayaan leenahay ya واساس سوسن ادم كو رعسنا وان كو محسنتahay anaga hadana masiixiyiin sayshani hada sheegtayba waxaan wadnaa message ama akhbaarta la yiraahdo akhbaarta jaceelka ilaah dadka u gaarsiinayna aan leenahay ilaah aad buu idin jecel yahay aniga markaan yaraa shaanin sidoo kale markaan aan maartay rumayska aan haysanay maana maqli jirin ilaah uu ku jecel yahay ilaah wuxuu na jeclaa oo kaliya maray shardi ku xirantaa markaas ilaah ku jecel yahay laakiin anaga hadda waxaan haysanaa ilaah asaga dhanba aan niraahno ilaah jecel waaye weligay ma maqlin ilaah ku jecel adiga wuu ku jecel yahay ilaah wuxuu adiga ku abuuray jecel uu ku qaba aawudeed ayuu ku abuuray leeyahay marka ilaah jecelka karakterkiisaas iyo qaabkiisaas aan rabnaa dadkeen inaan u gaarsiino si qalbiyadooda jecelka ilaah ugu buuxsamo si ayagana u noqdaan jecel socda haddaan iswada jeclaano dhibaato dhan imaanayso jecelku wax ma xasido jecelku wax ma dilo jecelku wax ma qalad ma sameeyo jecelku qofku ma xadgudbo jecelkaasna waa ilaah waayo kitaabka waxa ku qoran kii aan jeclan ilaah ma yaqaan waayo ilaah waa jecel marka jecelkaas waa suusan waa ku mahadsantahay anaga rabnaa soomaalida inaan gaarsiino wax kaleeta anaga masiixi ilaah noogama dhigin oo nooma dooran wuxuu rabaa jecelkiisaas oo laga qariyo soomaalida inaan anaga dib u gaarsiino anagu afkeena hooy ku hadlayno marka wanaagaas aan wadnaa soomaalida jecelkaas soomaalida meel walba ha gaaro ogaada ogolaada kala duwanaanshaha hana cunsureynin hana dhihin hana ka maxay qofna ilan kama bixin kartaan soomaalinimada nagama bixin kartaan ka bax iyo ku jirtoona ma ahan meeshan ma aha choice ma aha waxa waaye waxa dooran kartay hadda ma aha sinjigayga Soomaaliba ka dhalan doona mismay already waa ka dhalanay already walaalahiina nahay already masiixiyiina noqonay qaar badan diinta way ka baxeen wadaadadiina way sheegeen maalin kasta sheegan waxay dhan 25% diinta sampo ka baxeen Soomaalida sanad walba ka baxaan shaqadiina ugu waaweynaa ayaa sheegay marka laakiin kuwa ka baxay waa kuwa idin jecel maaha cadawgiina soo dhaweysta hoosta gashta waxa waaye runtum baa guuleysanayso kaniisadii masaajidka la isku agdhiso nabad ha lagu wada joogo ummadda ha isjeclaato idinka waa inaad jecel iyo nabad iyo naxariis baa anaga idin haynaa idinkana sidoo kaleeto laakiin ha sameynina inaad tiraahdaa oo qofkan haddii aad wax kala qaban karin maxay ka aamus oo hala hadleen oo maxay jidka ku ciriiri oo hadalka ku ciriiri oo xasnimo ku sameey oo xaflad ha uga yeer oo community ahna uga yeer hadda anaga Yurub aan joognaa Yurub markaan joogno waxa ka jira community badan ah jiro sinji kasta waxay qabaan community qabaan shino sama anaga Soomaali community qabaan Soomaali community ay qabaan heer maxay waxa la rabaa in aad gaartid heer in qof kasto masiixi aha atheist aha buddhist aha diintu doonaba haysto muslim haduu ka baxay inaadan aad kulli aad soo dhaweyn karto heerkaas inaad gaartaan la rabaa laakiin dad qaarkood maxay gaareen heer maxay gaareen ay sameeyaan Soomaali waaye
yurub ay joogaan oo hebel kirsan baa noqotay hanoo imaanina hadda lacagtii dowladda ayaa community ugu dhisan yahay dowladda hadday maqasho ninkan communityga magacayga ayuu ugu dhisan yahay dhibaato kasoo gaara communitygiis albaabkaa la iskugu dhufanaya wuxuu rabaa communityga intuu u furnaado inuu bes inta muslimka la soo geliyo dugsi qur-aan ka dhigo uu rabaa ma soconayso communityga marka lagu siiyo waxaa waaye bulshada dhan soo dhaweey bulshada ha is walaashadaan bulshada ha ku ducaystaan bulshada ha is dhex galaan bulshada qof kasta welcome ha ahaado kan masaajidka ugula tukanaya keliya welcome ahaado maaha waa qalad weyn Europe waxa ka dhacayo dadka maxay organisationada iska leh communitiyada iska leh Soomaalida sheeganayo dadka diinta islaamka ka baxo waad cunsuriyaysan waadna ka bixisaan hanoo imaanina waad ka cabsanayna kuwii kala naga kala tagay war waxaas waa qalad weyn dowladana albaabada isku keen xiraysa ka toobadkeena walaalihiina nahay meel aan u socono ma lehe waa sii badanaynay waa sii weynaanayna waan ka sii dareynaa mirdhow waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay 100% diinta islaamka baxda laga yaabaa maxaa dhacay 25% hadda sheegateen inaa ka baxeen konton laga yaabaa 67 xagee u ceerinaysa meel aaday ma laha soo marka qofka sinjigaaga waaye ma tuuri kartaan walaalayaalo ufra albaabada maskaxda bedela adiga saa u jecesha wadan Yurub ku nooshahay lagugu ogolaade lagugu furay community center lagugu furay kaliya kan kula tukanay qof kasta lagugu furay marka qaladkaas ka toobadkeena walaalay Soomaalida saas waa Soomaalida badanaa wax ku sameeyaan waxbay xukumaan xukunkaas ayaana dhibaatada badan inta badanaa keena صح مصعب عبد الرحمن وادي السلامة والعليال I love you مسيحي إنا برتا أيان ربا سو دوا ولا لو وانكو برينا تلفونك ماشي كو قرن نجلسو حرير فيسبوك نجلسو حرير ستوس نجلسو حرير أنا بايبل نكسينا نوح نكبرنا كسود وين منيسة حسن سود دوا معانتو يا نعيمة يا وول today دمان read the Bible yes read the Bible أنا ولكن كتاب كتاب قدوس كتاب كان أنا كسينا نقفك ولالك يرمسيح ربنا برتو سود يقف كستو داونايو حتى ذاك حشون سنا ماشي كسو قرت مسيح ربنا برتو سي برايفت أحمسي تنوع صدر أنا منهن ضدك استوتوس ضدك أي هذا هبل أيامات الدين تسوق سو أرداي maalinkas dadka masiixiga soo galo waan aragnaa ilaahay inuu tusay hadana banaanka ma soo dhigano man istustusna ma aha masiixiyada waxa waa qalbigaaga qalbi furan in aad ku aaminto samaashin sax sama saas waa qalbiga aamin afkan ka qaro in masiixi rabbi badbaadiyaha kadib waxa laakiin anaga madad ma istusana hebelaaga soo gal hebelaaga ma aha wax wanaagsan ma waa kuwaas waa dadka dunida ku faana oo yiraahdo anaga waan faafnaa anaga waan badanaa bal arka waxaan sameeynaa waxaan laakiin rumaysadku waa qofka iyo ilaahiis wax ka dhaxeeya waxa waaye marka in waxa wanaagsan qofka asaga inuu xor u ahaado sidaas warba inuu sameeyo marka waxaan ku sii soconay aan ka hadlaynay xukunka Soomaalida aad bay xukunka u jecel yihiin waxbay xukumaan si xunna wax u xukumaan ilaah baa iska xukunka bini aadamkeena waxa la rabaa inaan isku ixtiraamno xukunkan ilaah u dayno haddii aad tahay qof oo ma artay ilaah aaminsan bini aadan kaleeto iyo ilaahooda wax u dhaxeeyo adina fargashta absolutely ma baaha marka waxaan aqrinayaa Roma cutubkiisa 10aad qormada 10aad waxay leedahay cutubka 14aad qormada 10aad waxay leedahay adigu maxaad walaalka u xukuntaa ama se adigu maxaad walaalka u qursataa waayo kulligeen waxaan hor istaagi doonaa kursiga xukuumadda ilaah haddii adiga aad diinta aaminsantahay ay tahay diin fiican oo islaadaha ilaah baa hadii xukun aan u hor istaagaysa adiga hadaa badbaaday adiga tagaayo laakiin qofkan kale ina fargashtaa maaha kuma taabal wala adiga wax xukumaayo ilaah naftiga kula hadlaa marka qofkan haduu ka baxay islaamnimada oo masiix uu noqday kuma tahay adiga oo qofkan gooynaayo kuma tahay adiga oo qofkan qursanaayo kuma tahay adiga oo wax dhibaayo maxaa u dhibaysaa qofka waa sax walaal baa wuxuu soo qoray waxa la dhahaa magaciisa arfon xirsina laga yaabaa inaa yahay waxaa ku qoran wuxuu soo qoray islaamka hadda ka baxdeen Soomaali ma idin rabta haddii laydin rabo dowladda ka mid noqon lahaydeen dastuurkana kuma qorno qof aan muslim ahayn inuu dowladda ka mid noqdo su'aashaas ka jawaab sheegay waa mahadsantahay walaalkay aad baa u mahadsantahay Soomaaliya waa wadan hadda soo qabsanayo oo dagaal intaas ay habsadeen oo haddana ma artay islaamiyiintii aad u qabsadeen wadaadadan xoog ay ku leeyihiin dowladnimada iyo dhulkii marka cabsi ay ka qabaan haddii
hadda la yiraahdo Soomaaliya waa in maartay loo ogolaado in qof walba diinta rabo uu aamino way aaminsan in la kala yaaco ama dawladda lagu soo daro marka Soomaaliya waxay aaminsan yihiin boqolkiiba boqol sida ay yiraahdaan waxaanu nahay muslimiin laakiin hadda ma aha sidaas waa boqolkiiba 70 ama 75 baa ah saaniga laftiga aaminsanahay marka waqti uu imaanaya walaalkay qaligaho waqti uu imaanaya dastuurka wax laga bedelo waqti uu imaanaya wadaadada aysan awood ku lahayn dawladana maartay doorasho dhib qofba maartay codkiisa la siiyo oo la soo doorto marka dawladda la soo doorto dawladda waxa waajib ku ah mas'uul inuu ka saaran yahay qof walba oo muwaadin ah xuquuqdiisa inay ilaaliso qof walba oo muwaadin ah wuxuu aaminsan yahayna in lagu tixgeliyo waqtigeeda uu imaanaya Soomaalida hadda ma horumarsana garaadkoodana maartay sida dadka qaarkood u bisilay uma bisla laakiin wax badan way isbedeli doonaan geedka hadda waa la beeray intuu miro dhalayn waa sugeynaa waqtigeedana waa imaanaysaa way dad badan oo dawladda ka tirsan iyo meel walba ka tirsan ayaa laga yaabaa in islaamka mar hore ka baxaan dadka qalbigooda ma taqaana waa maya laakiin cabsi bay la wada aaminsan xitaa iyaga laftir firqooyin kala duwan haday noqdaan xitaa hadda maanta dowladda qof sunni ah ka baxay shiica noqday isla muslim ah dawladda ma ka qayb qaadan karaa walaalkana soo weydiiyay walaashana soo weydiisay no looma ogola laakiin marka hadii isaas ku dhacdo xitaa qalbigiisa kuma sheegaya adiga marka dadku waxa wada malaysaa inay yihiin dad wada sunni ah dawladda waxa laga yaabaa in laga buuxo wax kasta la ku jiro adduunka anaga ma naqaan ilaahum bay u xisaabsiin dadka saas waa arimahan marar kale tan waa ka hadli doonaa hadii rabbiga idmo laakiin hadda waxaan soo dhawaa milyan soo dhawaa Idris waxay tiri my God bless you by proclaiming the word of God peace to you from God our Father and our Lord Yeshua al-Masih. Hallelujah. Welcome sister. My God bless you. And CX Hassan Somali wa Somali Muhammad Idil. Ha so do Somali wa mahadsantahay isaga Hussein Somali baa leh نبي ما هن إله سجل حسين وحلا عيسى ونبي ما ها إله تاس وحن كهذا مركلنا أيام كاج جوابنا هذا معها وما هتنت تبقى قوات كا هذا وحلا تبقى وحويان سومالي ذا يو دين تميز كحرنت أنا قص سومالي دين الإسلام كبحني هذا الصومالي ذميان كبحنا aad wanaagsantahay topic aan ka hadlayna markaas qofka markuu yimaado inuu maartay wax ka dhaho ama wax ku soo zaaido saasan noo wanaagsan topic aan taagnaa topigeeda kale mar kale u gudbiyay waa si soconeena xukunkan ku jirnay adiga qof maata marka wax xukuma hadii qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah uu ka baxo islaamnimada waxa wanaagsan ilaah inuu deeyso xukunka adiga xukumin laakiin hadhow hadaa xukunto adaa laga yaabo xukunkana dib kugu soo noqonaa kaanina aqri Roman 14 aayada 23 waxa ku qoran sidaasa midkeen kasta ilaah ula xisaabtami doona sida daraadeed mar dambe yeynaan isxukumin laakiin si tan ka fikira inaan nina walaalkiis u dhigin dhagax uu ku turunturoodo ama wax kaleeto oo hor joogsado ha isku finina ha isqiyaameynina ha iska shafina ha isxumeynina xitaa maanta hataa loo firqo kala noqotaan xitaa hebel firqadaas uu galay hilib mucuna iyo yaanyo cuna inta tiraado madaxa ha ku dhufanin ilaahay ma ogolo ilaaha kula xisaabtama ilaahay wuxuu ku leeyahay maxay qofka maaragtay midkiinba midka kaleeto ilaah baa la xisaabtami doone mar dambe has xukumin ilaahna leeyahay ana isxumeynina ya marka aniga wanaagsan waaye oo walaalaheena muslimka islaamka aaminsan u soo jeedinayno hadii qof uu islaamnimada ka baxo adiga ma xukumi kartid adigana ma dhaleeceynaysid adigana ma macnaha waxba uma sheegi kartid waa inaad tiraahdaa kaliya adiga ilaah isku kiindaay xukunka hadhow asan ilaah soo istaagaa adna ilaah istaagaysaa adiga maxaa ku banaan marka inaad ixtiraamto inaad soo dhaweyso inaad nabad kula noolaato qof maartay kaleeto wax u dhimi karaa wax u keeni karaa midna malaha waa run qofna adiga wuxuu kama qaadi kartid because adiga adduunka ma keeni mana ka qaadi kartid taas ogaada qof kasta ilaah adduunkan keen asaana waqtigu raba ka qaaday asaana meeshuu raba geeyna adigu ilaah ma tihid jacayl iyo walaaltinimo aan isku wada joogno qof walaala soo qortay maxay tahay catch 22 waxa la qoray islaamnimo iyo soomaalinimo ma la kala reebi karo baa lagu yiri islaamnimo iyo soomaalinimo waa isku hal xabo ayuu leeyahay qofkan gadaal aan u celino Soomaali intaysan muslim noqonin ka hor maxay ahaayeen markaas iyada ah maxaan sameeynaa marka diinta islaamka markay timid bay yimaadeen 1400 sano ka hor Soomaalinimo way jirtay markaas kajkaas muxuu noqonaa marka Soomaalinimo maxayna tahay marka waa dadnimo ilaahay badan caabudi jireen Soomaalinimo waa dadnimo Soomaalinimo waa jinsi taas ogaa walaalkayo waa ka sii soconaa dhib malaha waa fikirkaaga waa normal waay waxna ma aha koeta ateka our sister gabadha habarta unaha waxay tiri masiixida waxay tiri waqtigii wacnaa uu soo socdaa amiin way maanaa waqtiga fiiri anaga hadda waxaan joognaa Yurub walaalo badan oo Soomaali ah ayaa Yurub jooga markay la soo wadanka yimaadeen ay ka soo carareen wadankoodii waa la soo dhaweeyay
marka la soo dhaweeyay waxa la dejiyay guryo waxa la siiyay shaqooyin waxa la siiyay caruurtoodii loo hayaa waxa la geeyay iskoolo waxay ka mid noqdeen bulshadii ee la deganay ay ka mid noqdeen waxa ku cunsuriyeenay adiga hebel tahay waa iska yartahay ma jirto quraan loo faray waxa loo soo dhaweeyay sida fiican ay loo soo dhaweeyay ka waran marka kuwaagii adiga kula dhashay oo Soomaali kula ahaa adiga hadaad ficlis ka waran ama xumeeyis ka waran waxa way garaadka la isdheeriyaa u maleynaya علمي يفهم كالس دريهاي مرك وحنا أخرنا عشان يحسقيل عتكيسة أفرتني تضبط عيد لواتني لبعض ماشى مسيحي محل إلى وضمنا يوروب كان سدان فكر كان إن تكسر ويان أو إذا تقول كم النقدان أو إلى نولادان أيضا أنا أخرنايا صح نأخر أو وإن دحل أهان سام وجو قيب ستا إذنك يوشيشية يا إذن دحدجن أو دحدينا عروتك علي صح أو وحي إذن أهان دونان سيدا كوا دلك ku dhaxdashay oo reer bin Israa'iil oo kale oo iyaguna waa inay dhaxal idin kula qaataan qabiilooyinka reer bin Israa'iil dhexdooda fiir wax qaybsasha imaatay waa la isdhaxlooyaa wadana dad kale ta imaadeen dadkii imaada hadii carruur ku dhaxdalaan waxa la leeyahay waa inay dhaxalka idin la lahaadaan maxaa dhacayna waxa waa ixtiraam waxa waa qiimeyn iyo qadarin qof qiimeynaya ka waran gadaada uu noqon adigii Soomaaliga ahaa kii walaalka Soomaaliga ahaa hada dhaxalkiisa u diidays ka waran oo aan leedahay Soomaali baale Soomaali waxaan dhilahay Muslim baale Soomaali Muslim ma laha Soomaali baale Soomaalinimada waa jinsi Soomaalinimada waa dadnimo marka waxa fiican qofkii hadda nala soo hadlayo oo kale ina qalbiga ka bixisid fikirka noocaas oo kale ma aha fikir adina ku dhisaayo walaalaha kale dhisaayo ma aha waa ina ka kortaa xagga garaadka waa ina tiraahdaa Soomaali baan ahay Soomaalina waa jinsi Soomaalinimadu waxa waa dhalasho laakiin islaamnimadu waa wax la aamino waa wax la rumaysto qaarna waa imaadaan qaarna waa ka baxaan hadda dadkan Yurub joogo kala hadda anaga wax badan aan Yurub joogno waxaan noqonay European citizen baan helnay dhalashaana la siiyay dad badan oo Soomaali oo muslimiin ah dhalashooyinkay wada qaateen ama European ama American ama wax doona ha noqdaan adiga Soomaaliya joogina walaalka kula dhashay walaalaha ku hor fadhiyo maanta anaga oo yiri muslim islaamka ka baxnay masiixiyiin aan noqonay ayaa xarta gurigeena ina qaadatid xalkeena qaadatid baawrkeena qaadatid ergeeni iyo loodeena geelena qaadatid beereena qaadatid Soomaaliya ma imaan kartaan dadkina waa ka baxdeen luuqadina ka baxa dadkina ka baxa yaa ku sii awoodaas adiga ma xata dadka soo galiyo Soomaalinimada oo dadkana ka bixiya miyaa tahay ma ka bixin kartid mana soo galin kartid ya marka waa arag waa sidaas waxa wanaagsan marka in nabad lagu noolaado in dadkana la ixtiraamo in qof walba wuxuu aaminsan yahay lagu qiimeeyo laguna qadariyo qof walbana asaga ilaahay soo dhaxaysa laba qof ayaa soo qortay muslimiin Maxamed Nuur wuxuu yiri murtadiin ayaa tihiin wiilka kale CX Xasan watana wuxuu yiri muslim waa isaga wuxuu soo qoray kulay lacag baa idinka saartay diinta aad ka baxdeen oo leeyahay marka laakiin waxaan rabaa labadaas qof in aan arrimahaas waan ka jawaabeynaa hadii ila raalka waqti kale aan ka dhigana weegeeda soo socdo wayna wanaagsan tahay waxa wanaagsan dadka inay ahaadaan dad ma artay wacyiga la socdo dad daraad inay ahaadaan ash topic laga hadlaayo qof fiican taaganahay maanta marka topic ina ka baxdo oo meel kale aad wuxuu ma hada su'aal qabtid su'aal waa su'aashan su'aalahan waa su'aal fiican waan ka jawaabeynaa qofka inuu iska soo boodo inta murtad baatiin meel iska soo fariisto waa ayaan daro waxaa timid dad baa u timid oo kula hadlaayo ina ixtiraamka wanaagsan kula hadlaayo isaga sadda ku dhahay murtad Soomaali kale oo musna isaga waxay ku dhahdaa murtad salaada markuu tukan waayo murtada tahay la leeyahay firqa kale oo gale murtada ta isaga waxa la tuug inta tuug dadka wuxuu dhahaa tuug ninkan waa nin murtadnimo because firqadu ka baxay sunnigu ka tagaa laga shiico inuu noqday murtad loogu yeeray isaga mindi loogu dabeerina marka anaga wuxuu rabaa inuu maaragtay atmosfeerkaas na dhex geliyo wala anaga murtad manihin murtad hadii la dhaho adaa murtad ku naqaana taas ogaaw marka yani sideedaba dadka Soomaalida intooda badan ma artay waxa waaye sidii hadaad oo sheegtay ayaga Israa'iil gareeya ayaga iscaabuda ayaga is ilaaliya ayaga ma artay saas sameeya way jiraan hadda kuwa badan oo islaamnimadii ka baxay laakiin haddana aan qirin karin inay ka baxeen awood uma laha way waxay ka cabsanayaan dadka maxay dhigayaan dadka ka cabsanayaan marba waxa fiican qofka inuu daacad u yahay rumaysadkiisa qofka inuu daacad u yahay dareenkiisa qofka inuu daacad u yahay wuxuu aaminsan yahay oo qofka kale u sheegi kara dhikara waxaana aniga aaminsanaa waayo hadii kale waxay noqonaysaa adiga inaa qofkaas caabudidba ama bini'aadamka caabudid bini'aadamka qadarinaysa oo saraysiinaysa inta ilaah ka dambayn lahayd oo ilaah qadarin lahayd marka waxaan akrinaynaa Galatia cutubkiisa koowaad ila tobnaad ayada tobnaad waaye waxa ku qoran ma waxaan haatan is ogolaysiinayna dadka mise ilaah
mise waxaan doonaynaa inaan dadka ka farxino haddaan weli dadka kasii farxino ma aanan ahaanin xerta ciise masiix ma aanan ahaanin annaga hadda dadka ma doonayn inaan ka farxino waa ujeednaa inaa xanaaqsantihiin masiixi aan noqonay way waasheen ya 12 qof anagoo ahaa inta hal mar soo istaagnay 2015 Soomaaliya dhan aa ruxantay markay arkeen waaw dadkan oo dhan gaalamiya way gaaloobeen way xanaaqeen dadkii diinta way ka baxeen Yurub markay tageen adduunka oo dhan asas u ruxmay adduunka oo dhan nagala sheegay waay asas u noqonaysaan annaga ma rabno inaan idin qancino waxaan rabnaa ilaahay inaan ogolaano raali gareyno oo sidoo raba aan sameyn sidoo rabana waxa waaye in aan ka baxno islaamka oo noqono masiixi runta idin sheegina hal jid jiro jannada lagu galay jidkan waa ciise masiix isaga wuxuu dhahay aniga ah jidka iyo runta iyo nolosha qofna jannada ma soo galay xagee ku imaado maahay anaga waa idin jecelnahay walaalahan waan jecelnahay eerkeen waan jecelnahay qabiilkeen waan jecelnahay Soomaaliya dhan aan jecelnahay sinji ahaan idin ku jecelnahay laakiin masiixi aan noqday hadaan ku dhaho waa ina igu aqbashaa ما هي أنا هذه أنت كافر حيو عم بين إسكالي وقف مسلم يا وهذون هوس مسيحي كاه أما هوس كاه الدين كلا كاه است أما هوس إله لاو كاه كوا ضد كاساس ما ينعيرنا عبسير إله كبحي إن أنت ورتي نسوي استعجان فرنت يدين شيء وايا أنا ضد مربنا في الحديث إله إيان ربنا يحريد ديننا إن سوء الشيء أنا حرب عنا هاي وحربنا نقول كرنا وحربنا ما كبحي كرنا وحق سوما لا قفكي إنه كبحوا دينتي إذن كب إسلام كوادي جرتين محيه قصب معها دينته سلم الهجر قفك كبحنا قصب معها نسوي دوية ونجعل هذا سماها ها مركا waxa ugu wanaagsan oo idin soo jeedinana oo tala ah aniga waxay ila tahay kulay nabad inaad dadka kula noolaataan hadii walaalka uu ka baxay islaamnimada oo wax kale uu doonto waa walaalka nabad kula noolaaw walaalka uu iska iridaa adiga faa'iido ay ku keenayso malaha adigoo isdhahaaya raali garee dadka kale ama asxaabta kale waxaan ku dhihi lahaa hadii walaalka uu masiixi noqdo masiixiga kii noqday soo dhaweey hadaa tahay islaam kan islaamka ah walaalkii haduu yahay muslim asna soo dhaweey waxa loo baahanyahay waa nabad in lagu wada noolaado waxa doontiin aamina inta firqo kala duwan dadkii oo muslim ah oo 97 firqo la sheegay dadkii inta 72 firqo xitaa haduu ka baxo firqada firqo kala galo ma aha ina cadow ku noqdo nabad ku noolaado wax ka wanaagsan malaha nabad inaan ku wada noolaano marka waxaan idin leenahay Soomaali shina qof arfoon xirse waxay dhahaysaa adiga adinka idin weydiinaa dhahday dad islaamki haday Soomaalida ka baxad waxay tir ka baxdeen Soomaalinimada ma ka baxdeen dad islaam ka baxdeen sasiga wada kulli hadaladan hadlino dhan baa waxay ahayd in la is aqbalo haddaan islaamnimada ka baxnay anaga kama aan bixin Soomaalinimo waa jinsigana kama bixi karno Soomaalinimadu waa dhiigeenan inta la furo laga madaadin karo meesha waxaan nahay masiixiyiin waxaan nahay Soomaali adiga waxa tahay muslim waxa tahay Soomaali waxaan ka hadlaynaa waxay tahay inaan is aqbalno oo nabad ku wada noolaano marka anaga waan jecelnahay dadkeena xoriyadna loo sii qofka wuxuu raba aamin karo عرفوني أنك الصومالي بانهاي صومالي دنا واجعلناها أنك مسيحيين بانهاي صومالي الإسلام كنا واجعلناها قف كستوان جعلناها قف والبني آدم واجعلناها قاس كن دتكنا نلقى شيء أنك صومالي واجعلناها أدبا جعلناها أنا عدو منهين وحنا ربنا إن نبض كنا ولاتان إن عفمات فرحات فينا كنا ولاتان إن دقناني حسنا هيسان رنتن إلا قرطان أدو في عنتها مركا waxaan aqrinayaa cibraaniyada cutubkeeda 12aad qorinka 14 wuxuu leeyahay nabad kula dadaala dadka oo dhan iyo qudusnaanta aan la'aanteed ninna rabbiga arki karin nabad waa arin aad wanaagsan in lagu wada noolaado qudusnaan waxa waaye si edeb leh si xas fiican si dhaqan wanaagsan si ma arday wanaag walba oo ku jira qudus waxa waa la qofka aan qalad معناها قلتك وكدعنا أما قلتك سيريها صح قدوسنا تاس أن لا أنت ربك ما أركتين مركو على الولاية نبض كلنا ولا ضد كذا أذين قدوس أهاب مركو لبضع سؤال تلا يودنا لبضع أن وهلا أنا جوز مسيحيين وحنونا هاي صومالي مسلم أهاو مسيحي أهاو دين لاو أهاو قلق استهاو كل جماعة أساس إن أسقط بسنة وأجربها أسقط بسنة ودنك الصومالي هدان جوجنا هدان دبد جوجنا هدان عرق جوجنا هدان نرك جوجنا ميربون جوجنا ولا لنا سنجي أو سنجي ومجوران الله محيط الشدة هذا ومجوران من دمعنا السو وأنا استعلانا واحد دون تأمن فرقة دون تيس أنا كمن عاي عدنا هاي نعن أنا وان كتشعل وان كسر بيسن عدنا هاي عيرين هاي برنين متقنا وايو وحن هاي ولا لنا هاي مال أن كل تجين ملها Soomaaliya asalnahay qofkii ilaahay sana ka dhex baxa taas aan ku soo celin waxa rabaa wax kala sheegashin in aqriya rabaa walaal qaar waxay soo qoreen TEMOK wuxuu soo qoray carabta kristiyaanka ah way leeyihiin laakiin carab kristiyaan way leeyihiin laakiin ma maqlin carab oo leh
kuwii diinta islaamka ka baxay carab ma aha jinsiyadda iyo diinta maxaa isku keenay ya halkee ku qoran tahay jinsiyadda iyo diinta waa isku mid waa yaab walaalkeena uu nagu raacsan yahay topiga haddaan soo qaadanay aad baan ugu mahadsantahay walaalkee annaga waxaan leenahay annaga waxaan nahay masiixiyiin waxaanu nahay soomaali iskuma xirna wax isku xirna ma laha iskuma xirna soomaalinimadu waa jinsi diintana waa rumaysan marka adduunyada dhan waa saas intooda badan adduunyada way leeyihiin dad badan oo muslim ah dad badan oo aan muslim ahayn islaamna ahayn kuwa badan oo islaamnimada ka baxay oo wax kale rumaystay waa dadkoodii uun waa ma kala fogeynaya mana iska fogeynaya mana tuurayaan marka annagana soomaalida waxaan ku dhiirigelinaynaa in idinkana walaalihiin aqbashaan soo dhaweystaan nabadna kula noolaataan idinkana qudusnaan hal idinka helo ayagana qudusnaan hal laga helo nabadna ku wada noolaano si hadhowna xukunka ilaaha ugu dhaafna hadhowna xukumidan nabadda ugu weyn ee farxadda ugu weyn waxay imaanaysaa markii Soomaalida ay ogolaatay sida hadii maxay tahay wadamo badan oo muslimiin ah Pakistan oo kaleeto wadamo badan oo muslimiin ah waxay qabaan muslim iyo christian is agdegan kaniisadii masaajidku way isku agyaalaan ilaa markaas saas ogolaano ayaa nabadda ugu weyn imaan doonta qofka in xorriyad la siiyo bal dadka xorriyad siiyo aan aragno inta muslimka ku harto iyo inta ka soo baxda aan aragnay waxa siisaan xorriyad oo dadka awood iskale awood sheeganayo oo shaqada isku sheega ama madaxda ah in uu ogolaadaan dadka dhahan qofka wuxuu rabo aamini karaa qofka wuxuu rabo noqon karaa diinta tartan haysta maxay tu xartaan ahaada Soomaaliyeed kulli welcome wadankii iyo dadkii iyo dhalashadii way naga dhaxaysaa waligeed marka waa arkeena inta ku harta inta ka soo baxda laakiin aan kulli anagoo is wada jecel laakiin waardiye hada tihiin oo bakoorad irida ala taagan tihiin oo farqada hada ka tagta ana iga soo horjeedaa madaxa kub uga siinaysa kii dhaqaaqo madaxa kub uga siin caloosha iyadoo lagu wada buko oo lagu tukaneen waxa qarinta sidoo ilaah laawa social media ku jiro in badan oo masiixiyiin aan qana milyan gaaraya rabbiga ma hada iskale dad way si badan kulli laakiin way idinka wada cabsanay why bini aadan laga ma cabsado ilaaha laga cabsadaa dadkan hadda maanta ilaah ka baxay ilaa wadaadidiina qeylinayaan ee dadkii muslimkii 25% way ka baxeen ogolaada inaad soo dhaweysaan jacayl ku soo dhaweeya qofku wuxuu rabo ha aaminsanaado isaga adiga ilaah uma tihid bakooradan haysatid oo xukumaysid oo la taagan tahay iyo hoos u dhiga iyo ismada iyo fogeynta joojiya waxa soo dhan waayo nabad kuma helayno wanaagna kuma helayno waxaan wanaag iyo nabad ku helaynaa inaan isjeclaano garbaha isqabsano inaan qaaraanka isla bixino inaan isku duceeyno inaan aroosida maxay tahay idinka casuuno aroosideen idinka casuuno xafladaheena idinka casuuno idinka naga casuuntaan inaan iskugu imaan karno community centerka iskugu imaan karno inaan maxay kaniisada idinku casuumi karno inaan masaajidka nagu casuumi kartaan inaan synagogue nagu casuumi kartaan oo wax walba sameyn karno saas waxaan ku helaynaa horumar dadka horumarayo oo dhanna diinta doonaan baha haystaan waa dadka ogol kala duwanaanshaha hadaa ka soo horjeedid intaaba ceyrsanaysa qofka oo leedahay hadduu farqadeeda ka baxo madaxaan ku dhufanaya nabad lama helayo saas waa ahaato walaalaha nagu cusub ee gadaalka imaaday waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ku samaystaan YouTube-keena Somali Christian TV waxaan idinka codsanaynaa maaragtay inaad Holy Boy Somali Jesus walaalayaal subscribe ku sameeya channelka qaybiya dadka dhan u qaybiya jimco kasta live ayaan soo galeynaa hadduu ilaah raal ka dhigo haddii wax kale soo saacidaan oo more aan ka dhigayna waa idiin soo sheegi doonaa hadduu ilaah raal ka dhigo hadda jimco kasta live waqtigan oo kale aan soo galeynaa sidaana noogu soo qora su'aalihiina noo soo dira waa idin jecelnahay walaalaha nagu xiran bahda Somali Christian TV dadka nala socdo maxay masiixiyiinta muslimiinta ilaah laawayaasha waxa doontaba ahaw anaga waan ku jecelna gacmo furan ku soo dhawaa bahda Somali Christian TV waa idin jecelnahay aad ba u mahadsantihiin walaalaha nala joogay maanta dhan ilaa maartay gudaanadka nala joogay waa ku mahadsantihiin rabbiga ha idin barakeeyo kulanti wanaagsan oo ahayd walaalaha masiixiyiinta nala joogay waxaan leenahay happy Friday good Friday waa maanta waqtigii ma artay aad ku wanaagsanaa ciidina ahayd rabbiga ha idin barakeeyo inaa qoonna laga good Friday waxa waa ciise masiix maalintu dambigii dunida dhan oo u dhintay waa maanta oo maxay tahay haddana waa maalintu dhimashada ka sarkacay dambiga dunida dhan ayuu u dhintay qof kasto aqbalo oo haddana daawanayaan hadaa aqbashid waxa ka qayb qaadanaysa boqortooyada jannada masiix annaga hadda waxaan nahay dad masiixiina Soomaalina ah waan idin jecelnahay haddii qof uu rabo inuu qaato masiixiyada ciise masiix afka laga qartaa qalbiga la rumaystaa inuu yahay rabbiga iyo badbaadiyaha waa mahadsantihiin daawashadana daawateen noo soo dira su'aalihiina noo soo dira qora commentiga ku reeba next time waxaa laga yaabaa in laga jawaabo su'aal adiga soo weydiisa ama topic adiga ka hadashay sidii hadda kan maanta ka hadleen week horeto
walaal kamid ah ayaa noo soo weydiiyay meesha ku qoran yahay adiga kaaga waxa laga yaabaa next week inaan ka jawaabno hay laawna subscribe ina samaysid nala soco next week oo Friday dina waa wada kulmayna hadda rabbigadmo waa inta ku tagayna waana duceynaya jaceelka ilaahayna weyn iyo nimcada rabbigeena ciise masiix iyo weheltinimada ruuxa quduuska kulligiin idin la wada jirto dhamaanteedba nabad iyo farxad iyo fiicnaan ilaahana wada siiyo in Jesus name amen Jesus mighty name amen thank you walaalaha dhamaan kulligiinaba rabbiga ha idin barakeeyo waa mahadsantihiin see you next week